asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha leh ee nagala socda dhammaan daafaha dunidow daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii kasmo iyo kayse intiinii la socotay iyo intiina aan la soconba waxa aynu hore barnaamijkii kan ka horreeyey aynu ku soo qaadannay kala sooca qabyaaladda iyo qabiilka kala sooca qabyaaladda iyo qabiilka ayaynu faahfaahinay oo in badan aynu isku taxalluujinay inaynu wax ka muujinno barnaamijkeenna caawuna ilaa iyo iminka waxa uu saaran yahay gaadhigii kala sooca qabiilka iyo qabyaaladda inta aynaan barnaamijka gudagelin in yar bal hadda aynu ka nidhaahno daawadayaashii daawaday barnaamijkaas qaarkood aragtiyo ay soo gudbiyeen ama ay noola yimaadeenba dadka badankiisu 90% aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin in la kala saaro qabiilka iyo qabyaaladda isla markaana laga xoroobo waxa loo yaqaano qabyaaladda oo dhibaato weyn ku haysa bulshadeenna hase yeeshee waxaa jira dad laba nooc ah oo arrintaasi aad moodo inay si kale u arkaan dadka qaar haddaynu kuwa wanaagsan iyaga warkooda waynu waa inala aragti ama sidaynu doonayno unbay doonayaan laakiin labadaa kooxoodee bala kala aragtida baynu doonaynaa in yar inaynu ka tilmaano aragtiyada ay qabaan iyo afkaarta ay doonayaan inay dadka maganaysa ay barnaamijkan ka dhiibtaan qayb ka midihi dadkaasi waxay ku leeyihiin qabiilka iyo qabyaaladda lama kaale saari karo oo waa isku mid isla markaana waxay cabsi weyn ka qabaan qabiilka oo ay leeyihiin mar haddii qabiilku jiro qabyaaladdiina way jiraysaa niman yaho bahasha naga daayo sideedaas ama qabiilka naga tirtira ama iska dhaafa muran weyn iyo dood adag ayay arrintaas ka qabaan iyaga oo ku adkaysanaya inaan qabiilka iyo qabyaaladdu kala duwaneyn ee ay isku mid yihiin inkasta oo aynu aada u qeexnay inkasta sheekh iyo shariifba la isku dayey in la kala caddeeyo qabiilku waxa uu yahay iyo qabyaaladdu waxay tahay isku soo xooriyo marka aad kooxdaa eegto fikirkooda waxa uu ku soo ururayaa inay waxa ka hadlinaya ay tahay cabsi ay qabyaaladda ka qabaan isla markaana hiilka xaqdarrada ah ee inta badan ay la kulmaan uu yahay mid dhinaca qabiilka kaga yimaada sidaa daraaddeed ay noqdeen dad la colloobay qabiilka laftigiisii qolyo kalena waxay ku leeyihiin iyagu waxa aad mooddaa inay dan ku qabaan in qabyaaladdu sii jirto waxay ku odhanayaan maxaa kugu kalifay maad iska dhaaftid ma qabyaalad baa la daynayaa qabyaaladdu waa waxa lagu nool yahaybe waa waxa la dadkuba ku kala socdee waa waxa weeyaan waad akhyaali baad ku socotahay maad iska dhaaftid maxaa idinku kalifayeen qabiil iyo qabyaalad ka hadashaan oo ya fikir noocaas bay qabaan kuwaasina marka aynu isku soo wada duubno aragtidooda labadaa kooxoodba kooxi waa dhowdhowdahay oo cabsi un baa haysa oo waxay u baahan yihiin in ay helaan wax cad iyo ficil cad oo muuqda oo qabiilka iyo qabyaaladda u kala saaraya waa kooxda qabta ma garanaysaa ka qabta cabsida xagga qabiilka iyagu intaasu bay u baahayeen laakiin kooxda kale waxaynu odhan karnaa iyagu waa kuwa danta ku qaba sidaa daraaddeed ma rabaan in qabyaaladdu ay ka tirtiranto waayo waxaa dhici kartaa inay macaashyo badanoo hadda ay qabaan ay hadhowto meesha ka waayaan laakiin ma aha gaadhigeennu midaynu u joojinayno labada kooxood midna way inaga go-an tahay innaga iyo intayna isku raacsan inaynu qabyaaladda meesha ka saaraba inaynu arrintaas inta aynu ka dadaali karno ka dadaallo qabiilka iyo qabyaaladana u kala socono sidii loo baahnaa ee waajibkayna u ahayd isla markaana mar kasta qofka aynu xasuusino qabyaaladdu inay tahay hiil xaqdarro ah waxa keliya ee ku soo kordhaana uu yahay kibir isaguna oo xaqdarro ah kibirba hadduu meesha soo galo kibirkuna waa xaqdarro marka labada lugood ay ku taagantahay midna waa hiil xaqdarro ah midna waa kibir marka kibirna uma baahnin hiil xaqdarraana uma baahnin ninka kule hiil xaqdarraa baynu u baahanay ama kibir baynu u baahanay ee qofka sidaa ku doodaya isagaa yaqaana
meesha uu ka keenayo qiilka uu ku xalaalaysanayo. aynu u gudubno barnaamijkeenna caawa daawadayaal. haddaba barnaamijkeenna caawa ugu horeyn waxa aynu ku soo qaadanaynaa 3 wax oo soomaalidii hore hayay, ama aynu nidhaahno 3 cudur oo dadkii hore hayay, iyo 3 wax ay haysteen oo macnaa daawo u ahaa. 3 cudur baa hayn jiray. mid wuxuu ahaa ficiltan badan. waxay ahaayeen dad ficiltan badan oo had iyo jeer wax kasta ficil iyo ficiltan iyo maxaan idhaahdaaye istifaac fara badani ku jiro. waxay kaloo ahaayeen oo cudurka labaad ee hayay ahaa caamamnimo badan bay haysay. dad aqoonta diiniga iyo tamaadigiiba ku yartay bay ahaayeen. waxa kaloo ay ahaayeen dad kibir badan oo ereyga car la yidhaahdaa uu aada noloshooda ugu badnaa. car waxaa samee, car ku dhac, cartaasaan samaynaya iga daba dheh, car wax la yidhahdo, taas oo salka ku haysay kibir iyo qabweyni aada u fara badan. had iyo jeerna waxyaabaha halisaha ku keeni jiray ka mid ahaa. 3daa cudur waxay kaga badbaadi jireen 3 kale oo daawo u ahaa. waxay lahaayeen garasho talisa oo halkii garasho la-aantu ka talin lahayd waxaa talin jiray ummadda dadka u caqliga ah ee u garashada ah ayaa u talin jiray oo talada gacanta ku hayn jiray. waxay lahaayeen guddoon toosan. ciddooda madaxda sare ahi waxay guddoomin jireen wax ummadda u cuntama, isla markaana guddoonka ay gaadhaan wuxuu ahaan jiray mid fula oo aan leexleexad lahayn, cidina aanay ka daba hadli jirin. waayo guddoonka ayaa ahaa midaan ku dhisnayn danaysi, eex iyo wax la mida toona. guddoon daacada buu ahaan jiray. sidaa waxa uu guddoomiyena sidaasaa lagu qaadan jiray oo lagu dabageli jiray, laguna fulin jiray. waxa kaloo ay lahaayeen dad waxay ahaayeen xishood iyo asluub badan leh. waxay ahaayeen dad birmageyda leh. waxay ahaayeen dad ay u kala soocan yihiin wax badan oo wax walba xad ka qabta iyo xeer ka qabta iyo xuduud ka celisa leh. sidaasay wax badan oo haliso ah oo ay geli lahaayeen ay uga badbaadi jireen. waayo qofku marka uu xishood had iyo jeer meesha iimaan yaallo xishoodkuna aad buu ugu badan yahay. meel haddaad aragto xishoodka iyo xayada iyo asluubta ay ka tagtay, iimaankuna wuu ku yaryahay. inkastoo ay ahaayeen dad aan cilmi badan lahayn, haddana waxaad moodaysay dadka maanta jooga inay ka iimaan wanaagsanaayeen. maanta markaad haddaba eegto 3dii cudur ee hore u hayay ee aynu nidhi midu wuxuu ahaa ficiltan badan iyo kibir badan iyo caamanimo badan, macnaa aqoon la-aan badan. maxaa iska bedelay? ficiltankii badnaa sidii buu u joogaa, kibirkii badnaana sidii buu u joogaa, ama waxaynu odhan karraa waaba ka sii daray. caamanimadiibaa meesha isbedel ku dhacay. waxaa bedelay cilmi badan, laakiin aynu odhan karno waa bilaa barako inta badan. waayo cilmigii maadiga ahaa wuu batay, kii diiniga ahaana wuu batay, laakiin haddana ilaa maanta dadkii waagii hore aan waxba aqoon ee garashadu ay talin jirtay iyo guddoonkii toosnaa ee talin jiray, ilaa hadda ma hayno aqoonta soo korodhay nooc kastoo ay tahayba inay kaalintii weli buuxisay oo ay doorkii ay lahayd ay weli qaadatay. weli waxaad moodaa in aanay waxay bulshada ku soo kordhisay ay aada u yar tahay marka laga reebo aqoon ahaan iyo dadku inay aqoon barteen marka laga reebo. haddana marka loo eego mashaakilada bulshada la soo darsaya ee xalka u baahan sida loo xalinaya markaynu aragno, waxaynu odhan karaa waagii hore dee wax yar baa markay mushkilada timaado waxaa lagu xalin jiray muddo kooban, laakiin maanta waxaabaad arkaysaa mushkiladii oo intaas oo sannadood aan wax xalal loo haynin. waxaa kaloo ad arkaysaa arrin dhacda oo mashruucuna
maxaa ku soo biiray oo intaasi saddexdii cudur ahay jiray markay ku waayihiin aynu leenahay waxaa isbedeluun ka dhacay xaggii caamadnimada cilmi baa soo kordhay isaguna aan barako badan lahayn guddoonkii toosnaa ma jiraa maya kaana waxaa bedelay guddoon qalloocan in garashadii talin jirtay ma talisaa maya iyadana maanta garashada talisaa garasha ma talisee waxaa taliya danaysi iyo khaayin danaysta iyo khaayin baa taliya waxaynu ognahay berigii hore in dadku marka arrini dhacdo ee arrintii la doonay in la xalliyo in la odhan jiray arrintanoo kale hebel baa ku fiicnaayo hebel hala doono dabeetana hebel ayaa la raadin jiray dadku waxay ahaayeen dad garashada iyo caqliga wanaagsan qiimeeya qofka uu ku jirana halka uu jooga ugu taga laakiin maanta ka kuugu soo horeeya ayaa wuxuu odhanayaa markaad tidhaahda arrin noocaa iyo noocaasa baa dhacay wuxuu kunayaa iska dhaaf anaa kala tuuraaye xataa ereyga la isticmaalaya ayaa ka duwan oo aan asluubba lahayn wuxuu ku leeyahay anaa kala tuuraya arrintaa iminkaynu kala tuurayna iska dah waaba la kala tuuraya almushkula dhibaatada jirtaa markaa waxaynu leenahay garashadii talin jirtayna waxaa bedelay danayste iyo khaayin oo halkoodii fadhiya oon xataa kii aqoonta u lahaa ama garashada u lahaa arrintaa xallin karayay fursad uma helayo inuu arrintaa soo galo ama uu wax ka qabto waayo waxaa kaga dayran oo xidhanaya oo mashaariic iyo waxyaaba ay ka faa'iidaan ka dhiganaya oo macaash ka raadinaya danaystayaal iyo khaayimin marka waxaynu nidhi garashadii talin jirtayna garasha halkii garasha ka talin jirtay garasha daraa ka talisa halkii guddoon toosani ka talin jirayna guddoon qalloocan baa ka taliya xishoodkii asluubtii iyo birmageydadii iyaduna ma jiraan maya intuba waa gabaabsi xaqiiq markaad u noqoto cilmiga soo kordhay xishoodkii ma siyaadin birmageydadii ma siyaadin oo ma sii xoojin asluubtii ma siyaadin macnaha waxaad moodaa maalinba maalin ka sii dambaysa ummaddu inay u sii socoto inay ka aradanto oo ay mucsur ka noqoto xayadii iyo xishoodkii iyo asluubtii wanaagsaneyd ee noloshu ku dhisnayd ee weligeedba soo jiri jiray waxaynu haddana u gudbaynaa bal hadda inaynu wax ka taataabanno dhibaatooyinka qabyaaladda aynu qaarkood bal dhacdooyin wax ka soo qaadanno si aynu isula fahamno bal in wax laga qaban karo qabyaaladda iyo inaan laga qaban karin waayo waatan dadka qaarkii cabsida badan ka qabaan ee ay kuba doodayaan inaan waxba laga qaban karin laakiin rayigaasi rayi wanaagsan iyo mid toosan midna maaha waxyaabaha inoo muujinaya ummaddu inay xayadii iyo xishoodkii iyo asluubtii ka tagtay oo aanay waxba maanta aan la odhan karo mucsur bay ka taagan tahay bal qisadan yar ee dhabtaa ee dhacday hadda u fiirso waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa magaalo ka mida magaalooyinka soomaalida ayaa nin baa waxa uu fadhiyey maqaaxi isagii baa aniga ii sheekeeyey wuxuu uhi maqaaxi baan fadhiyey waa maqaaxi aan weyneyn oo yar wuxuu uhi meel ka mida maqaaxida waxaa lagu ciyaarayay turub meella waxaa lagu ciyaarayay dubnad dabeeto waxoogaa markii aan fadhiyeyba waxaa soo gashay gabadh ordaysa gabadhaasi waxa ay xidhan tahay googarad keliya macnaha jidhkeeda qaarkii sare oo dhami wuu qaawan yahay dabeetana waxaa ka soo dabagalay isagoo ordaya isna soo galay nin wejiga oo dhandhii ka da'ayo shaarhka uu xidhan yahayna uu jeexjeexan yahay oo maca gacan dhani goday dabeetana gabadhii iyadoo qaawan bay waxay ku dul wareegtay dadkii ciyaarayay turubka dadku turubkoodii bay iska ciyaarayaan sidaasaa loo yaro eegay dabeetana nin raggii ka mida baa wuxuu ku yidhi ninkii waarda iskaga hadh dabeedna ninkii gabadha eryanayay intuu ka hadhay buu meeshii ka baxay
nin raggii meesha fadhiyey ka mid ah ayaa cumaamadu hayay saa ugu yaro tuuray dabeetana turubkii iyo ciyaartii la watay baa la iska sii watay. bal hadda qiyaas qof wuxuu yidhi ninkaasi qof ay ka muuqatay inuu mushkilad arkay oo goobtaa fadhiyey ma jirin. waxay iska sii wateen turubkoodii iyo dubnaddii ay ciyaarayeen. gabadhii baa dadkii haystay dukaanka ama maqaaxida haystay oo maqaaxida oo dukaan yarna lahayd ba halkii la geliyey. aduu dhar baa loo soo xidhay. gabadhii baan dabeetana wuxuu yihi waraystaaniga waxaan ku idhi maxaa dhacay? waxay igu tidhi buu yidhi ninkani wuxuu doonay inuu ikufsado dabeetana dagaalkaas baana dhex maray. bal hadda u fiirso, gabadh la doonay in lasoo kufsado oo iyadoo la eryanaya lasoo geliyey meel dad joogo oo dad Soomaaliyeed weliba joogo oo weliba iyadoo qaawan lasoo geliyey oo weliba iyadoo la eryanaya lasoo geliyey oo aan wax ka diiray jirin. bal hadda u eeg. ninkii wuxuu ihi waxaan weydiiyey qoladii baan ku uhi waryaadhaheen maxaa miyaydaan in masiibo waxaan idiin yimi iyo wa arrintan idinku dul dhacday inay masiibo tahay miyaydaan ogeyn? waxay yidhaahdeen masiibo tan hayse ka weyni ma jirto. macnaha waa dad socday damiirkoodii wuu dhintay. bal hadda qiyaas arrinta laga diiri waayey iyo waayaha qaarna arrintu siday ahaan jirtay. waxaynu taariikhda ku haynaa rag Soomaalidii hore ka mid ah inuu arkay gabadh ooyeysa dabadeetana uu yidhi war gabadhan yaa ka oohiyey. dabeetana la yidhi waxaa ka oohiyey hebel. dabeedna intuu u tegay buu hebelkii dilay isagoo ka xun gabadha laga soo oohiyey. xataa markii suugaanta Soomaalida gabadhaasi waa ku jirtaa taariikhdeedu. xataa markii la raacay ee arrintii lasii dabagalay ninkaa iyo gabadhaas waxa la ogaaday xataa inaanay isku qabiil ahayn. laakiin wuxuu ka xumaaday keliya gabadha laga soo oohiyey. waayo dhaqankeenna iyo caadadeennaba ceeb bay ku ahayd. iska daaye in sidaasoo kale dhacdee in gabadh laga oohiyo ama la fara saaro oo suuq lagu fara saaro dil bay ahayd. nin kasta oo Soomaaliyeedna halka uu kaga soo baxo ayuu wax kaga qaban jiray. maantana waa halkaa maraysa inaan gabadh la soo qaawiyey oo dharkeedii laga dhigay oo sharafteedii saa loogu soo ciyaaray oo weliba la eryanayo inaan deera u hirdiin inaan xitaa maxaa kugu dhacayna maxaa ku helayna muxuu kuu eryeynayaana xitaa la odhan kari waayey. damiirku waa ka halkaa maraya, waa ka sidaa u dhintay. waa yaab. bal haddana markaynu taasi asluubtii iyo iimaankii iyo akhlaaqdii inay sidaa u dhimatay qisooyinka noocaas iyo qaar badan oo kale oo la mid ah oo jiraba aada inoogu iftiiminaya oo garanaya maanta halka aynu marayno tusaale weyn inaga siinaya. waxaa kaloo jira dhibaatooyinka hadda jira sida ay kuu muujinaya inuu xishoodkii iyo xayadii iyaduna ay meesha ka baxeen oo dadku ay taageerayaan xumaanta. haddii aada magaalooyinkeenna tagto waxaad arkaysaa dad badan oo si khaldan u soconaya. tusaale ahaan imika adigoo gaadhi wata haddii aad dadka dhex marto waxaa iska kaa qabsanaya nin wax alaale wuxuu kugu qabsanaya inaad garanayn. haddaad tidhaahdo war maxaad igu haysataa ee khalad ah, dadka hareeraha kaa maraya ee idin daawanaya waxay ku odhanayaan u dhiib isaga dhiib erey la yidhahda baa la isticmaalaya. markaad tiraahda maxaan u dhiibaa waxaa lagu odhanaya waa loo dhiibaaye isaga dhiib. taasoo micnaheedu tahay laaluush iska sii, waxoogaa laaluusha sii. haddaad u sii dhaba gasho
oo tahda maxaad laaluushka u siinaysaan qofkan gardka daran leh ee khaladka kugu samaynaya ee khaladka kugu qabsaday adigoon khalad ku jirin maxaa aad u siinaysaa laaluushkii aad waa askari tusaale ahaan askari waa qof askari metelaya weeyaan qofka inta badan saa samaynaya ee la leeyahay u dhiib waxay ku odhanayaan bal hadda eeg dadka damiirkoodu siduu u dhintay iyo sida ay isu dhiibeen waxay ku odhanayaan intuu ku jiidjiidi lahaa isaga dhiib waa runtood dhinac markaad ka eegto oo wuu jiidjiidayaa haddii ay sidaa samayn waayaan meel ay uga cawdaan iyo cid ka qabanaysa midna ma jirto xataa hadhowtana wuxuu u geynayaa meel kale oo lagu sii jiidjiido oo kooxda joogta macnaha meel kale oo ama saldhig buu la tegayaa ama meel kale uu la tegayaa ma garanaysaa in meelihii uu ka shaqaynayaya dabeetana ninkaasi ma helayo cid isaga iyo askariga u garnaqda oo tidhaahda waad ka gardaranto hadduu ka gardaraya ka qabataa laakiin wuxuu u tegayaa koox la sii jiidjiida oo marka meeshii la geeyo uu yidhaahdo ama sidaas u sameeyo dabeetana intay iyana ku miisaan jiidjiido oo dabeetana sharaftiisa ku ciyaara dabeetana ummaddu waxay arkaysaa madowga iyo guuldarrada iyo maxaan idhaahdaaye iimaan xumada iyo rajala'aanta ka dambaysa ee bilaa xalka ah dabeetana wuxuu ku leeyahay war isaga dhiib intaas macnaha isaga dhiib dhibka ku soo gaadhaya intaa ha ku ahaadee intaa ha kugu koobnaadee samey laakiin haddii sidaa la yeelo mushkiladdu xal ma loo helayaa haddii sidaa lagu sii socdo la xalaashado mushkiladda xal ma loo helayaa maya way sii laban laamaysaa way sii saddex laamaysaa way sii afar laamaysaa way sii shan laamaysaa sidaas ayay ku socon doontaa dabeetana ha dhowto waxay ka nolosha wax ka mida oo xalaala oo aan cidina isweydiinin inay khalad tahay bay ii noqon doontaa aan idin xusuusiya daawadayaal barnaamijka intiina daawanaysaa ee doonaysa inay ra'yi ka dhiibato ama tale halkan ka soo jeedisaa waxa ay isticmaali kartaa ama nagala soo xidhiidhi kartaa telefoonka shaashadda ku qoran oo idiin furan inta uu barnaamijku socdo dhinaca qabyaaladda haddii aynu leexano iminka oo aynu iyadana bal tusaale yar ka bixino iyo qiso inoo muujinaysa inay fududdahay sida qabyaaladda wax looga qabto dadkana looga saaraa bal sida ay u fududdahay waxaynu soo yaro qaadanaynaa qiso yar oo dhacday 1991 maaha qiso sheeko ah oo aan cid ma garanaysaa kale inoogu soo sheekaysan laakiin waa qiso anigu aan goobjoog ka ahaa 1991 ayaa magaalada Burco goor galaba ayaan anigoo dhinaca magaalada Hargeysa ka soo baxay aan soo galay markaanu soo galay waxaanu la kulannay magaaladii oo aan sidii wax aan deganayna waxaanu aragnay gaadiid badan oo kuwa dagaalka ah oo kaarayaal ah oo meelaha magaalada laga soo galo taagan markiiba waxaana lagu taabtay war odhanaya ciidankii magaalada joogay ayaa waxa uu u kala baxay laba qabiil dabeetana waxay isugu soo jiraan dhufayska kaarayaashan wadooyinka taagan ee aragtaana waa qayb ka mida iyagii oo aan kala bixin oo labada qaybood ee doonaya inay dagaalamaan magaalada ka ilaalinayaan ay soo galaan goor galaba bay ahayd subaxii baa waagii beriyey waxa aan tegey xafiiskii gobolka ee magaalada Burco dad baa ku shiraayay markaa ma gelin gudaha laakiin dabadaan istaagay waxaan arkay muran badan oo sida ka muuqanaysayna aan wax isu soo dhawaanaya iyo wax xalihi ka muuqan baa ka socday halkaas markaan arkay doodu siday u socoto ayaan iskaga tegey ina yar baan ahaa runtii waxaan filayaa 20 ka inay weliba aan meelahaasaan ahaa haddaanay kaba yarayn waxaan u tegey dabadeeto
dadkii magaalada mas-uuliyiinta ka ahaa ee lay sheegay baan markaa doontay. waxaan u tegey ugu horeyn nin la odhan jiray, waxaan filayaa weli inuu nool yahay, cismaan cawad. cismaan dacas buu ku magac dheeraa. wuxuu ahaa nin aan filayo darajadiisu inay gaashaanla sare oo ciidanka u ahaa. waxau markaa ahaado ku magacownaa taliyaha ciidanka markaa aagaas. waxaa kaloo u ahaa oo ku magacownaa guddoomiyaha gobolka togdheer buu markaa ku magacownaa. cismaan baan u tegey. goor galba waxaan ugu tegey hudheel magaalada ah soo ku jira. waxaan ku ihi waxaan doonayaa inaan ciidanka kala baxay la hadlo. waxaan kaana codsanayaa inaad igu darto nin sarkaal ah oo ciidanka labada qaybood ay sayaaba ay ku kalsoon yihiin oo aanay ka hor imanaynin. wuxuu igu daray nin la yidhaahdo maxamed muuse liibaan oo sarkaal ahaa. annagii maxamed muuse liibaan baa israacnay. waxaan u baahday markaa gaari magaalada joogay oo mikrofoonno ku xidhnaayeen baan u baahanay inaanu isticmaalno. dabeetana waxaan tegey dowladdii, ninkii gaariga waday baan u tagnay. uu naga aqbalay hawshii inuu nala qabtuuna raaco, laakiin wuxuu ihi gaarigu shidaalna wuu u baahan yahay, bayteriyo mikrofoonadu ku shaqeeyaanna maalin kasta in la jaaj gareeyaa bay u baahan yihin oo daboo la buuxiyo. markaa kharashkaana anigu ma awoodi kara buu ihi, ma hayo. waxay nagu kaliftay markaa inaanu dowladdii hoose oo markaa shaqaynayso magaalada tagno. ninka markaa haysto maxamuud xaashi la yidhaahdo oo markaa duqa magaalada ahaa. waa ninka imikana wasiirka duulista hawada somalilanah. ayaanu u tagnay oo nin dhalinyaro ah markaasa. arrintii baan u sheegno waxaanu doonaynaa gaarigaa inaad kharashkiisa, bayteriyadaa la buuxinayay iyo shidaalka iyo ninkaa wada iyo waxaasoo dhan inaad naga qaabasho. waa qaabilay buu yihi arrintaana dowladda hoose. markiiba wuxuu yeedhay qoladii maamulka dowladda hoose. arrintii buu yidhi arrintaa way la fuliyo. dabadeeto 7 meelood baa ciidanka kala baxay fadhiyey. 7dii baan waxaanu qorshaysanay subax walba inaanu 2 u tagno. dabeed waxay noqotay ciidan kasta inaanu u tagno, la hadallo. waxyaabihii maalintaan ciidankaa ku lahayn waxaa ka mid ah, haddii inamadii maalintaa dhufayska isugu jiray erayadii aan markaa maalintaa sida aadkaa aan uga dhaadhicnay waxaa ka mid ahaa, waxaan ku idhi imika waxaa ku jirtaan dhufayska oo dagaal baad u abaabulan tihiin. adigoo dhufayska ku jira dagaalka waxaa ka faa'iidi doontaan baan ku idhi 3 wax. 1 waxaan ku idhi dagaalka waxaa horta nabadda la qaadan doonaa adigoon lagaala tashan. ninka dagaalka ku gelinayaa maanta isagoon kaala tashan buu nabadda qaadanayaa. dabeetana adigoo dagaalka ku jira oo dhufayska ku jira ayuu ku odhan doonaa nabad baa la qaatay ka soo baxa. haddaad diidana wuu ku cambaarayn doonaa, dhibaataa kaa gaari doonta. wuxuu odhan doonaa maxaan idhahdaa bilowadaa tahay. 1 taasi waa mid. qodobka labaad baan idhi waxaa ka faa'iidi doontaan nin maanta kuna noolo saaxiibkaaya oo ama dhinaca kale ka soo jeeda ama dhinacaaga taagan baad ku waayi doontaa dagaalka ama ku naafoobi doona. ha dhowto dhimashadiisana marka la soo qaadayo magaciisa waxaa la odhan doonaa kii hebel mee marka la yidhaha waa kii dagaalkii sokeeye ku dhintaa la odhan. ama haddii la yidhaahdo ninka naafada ah maxaa ku dhacay, dagaalkii sokeeyuhu ku naafoobay baa la odhan. markaa taana waa ka dhaxli doontaanoo wax sharaf ah oo ka dhintaana ka dhaxlayo ka naafoobaana ka dhaxlayaa ma jirayo. waa qodobka labaad. qodobka saddexaadaa ka dhexlaysaan baan idiin sheegayaa baan ku idhi, haddii maalinta dagaalku dhammaado dhinacii ay ishayseen hal taako oo dhula oo ay leeyihiin oo aa haysanaysaa ma jirayo. hal guri iska daa guri dhane hal qol oo guryahooda ka midana intaa haysataan mulkigiina kama mid noqonayo.
waxaa keliya ka faa'iidaysaan in intaasoo qof oo aad taqaaneen oo labada dhinacba ahi ay ku dhintaan. marka maantaan idinla talinayaae ordoo xeryaha ka timaadeen ku noqdo midooba baan ku uri. 3 maalmood gudahood ciidan kasta oo aan u tagnaa meeshii uu ka yimi buu markiiba u dareerayay. ballankana halkaasi waxay noogu ballan qaadayeen inay intay dhufaysa ka baxaan xeradii ay ka soo baxeen ee ay ku kala tageen ay ku noqonayaan iyagoo mid ah. 3 maalmood gudahood bay arrintii ku baabaday, dhibaatadii magaalada ka taagnayd isku taagtay, ciidankiina ku midoobay. 2 sano ka bacdi ayaa anigu Hargeysa lugeynaya. hudheelka la yidhaahdo guriga shaqaalaha hortiisa anigoo lugeynaya ayaa nini joojiyey dhalinyaro ah. wuxuu yidhi may garanaysaa? waxaan ku yidhi maya. wuxuu yidhi waxaan ka mid ahaa ciidankii magaalada Burco taariikhdu markay intaas ahayd aad kula hadlaysay eed arrimaha noocaa iyo noocaa iyo noocaasa kula talinaysay ee dagaalka annagoo isku hor fadhino dagaal. waxaan kuu sheegayaa buu yidhi sidaad la socoto dagaalkii wuu dhacay. intii aad sheegaysay un baanu ka faa'iidnay, wax kale oo aanu ka faa'iidnay ma jirto. marka waxaa inooga caddaanaysaa halkaa 1 dadka in qabiilka iyo qabyaaladda loo kala sooco oo weliba qabyaaladda laga daweeyaa inay aada u fududahay, laakiin ilaa hadda ay leedahay cid isu taagta oo diyaar u ah inay wax ka qabato oo weliba aan hadal ahayna ficil ku muujisa inay arrintaa wax ka qabato. waxaa kalood arkaysaa sida dadku ay ugu nugul yihiin inay wanaagga xaggiisa u janjeersadaan ay u leexdaan, oo haddii ay helaan cid ay ka dhab tahay oo ay ka daacad tahay oo u taagan inay arrimaha ama qabyaaladda wax ka qabato ama macnaa gidaar ku kala xidha qabiilka iyo qabyaaladda, hadday arkaan inay isdaba taagayaan oo ku dhiiranayaan oo raacayaan oo adeecayaan oo dabeetana ay ka baxayaan. qabyaaladdu daawadayaal waa taas waxaynu nidhi waxay ku taagan tahay 2 lugood oo midna yahay kibir midna yahay heel xaq darra ah. bal hadda qisadan u fiirso. kibirku marka uu xad dhaafo heerka uu gaadho inuu mararka qaarkood qofka laftigiisa halis geliyo. qiso dhaboo dhacday baynu in yar ka soo qaadanaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bal hadda haad ku soo dhawow barnaamijka saaxiib, magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso. waayahay kusoo dhawow barnaamijka, waa kusoo dhaweyneynaa. fikirkaaga iyo aragtidaad barnaamijka ka qabtay waxaad ku biirinayso. aad iyo aad ba umahadsan tahay. waana idin salaamayaa bahda tv-ga sabsar iyo adigaba. runtiina barnaamijka 2 qaybood oo barnaamijka uu ka kooban yahay, labadaba runtii aad baan ugu xiiseynayaa. qaybta koowaad oo aad ka hadlaysay qabiilka iyo qabyaaladda waa runtii arrin aada muhiim u ah waaye, oo runtii saldhigna u ah soomaalida nolosheeda oo dhanba dhinac walbana ka saamaysay. laakiin waxaan odhan lahaa af soomaaliga maadaama dadka Soomaaliyeed hadda muddadii af soomaaligu uu qornaayo oo iska yar oo weli aan af soomaaliga la cilmiyeynin, macnaha cilmi ahaan aan loo baranin oo aan erebixinno fara badan lagu samaynin, maadaama burburkii uu dhacay afkuna uu la burburay, waxaan odhan lahaa yani inaad ku bilowdo yani tribalism iyo tribe iyo tribalism oo kale, oo laga yaabo dadka afafka qalaad yaqaana in ay u fahmi karaan sida hadda u fasiraysay oo ah differencega u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya qabiilka iyo qabyaaladda. qabyaaladda waa tribalism, wax badan kama sokayso
mabdigii naazismka oo hadda adduunka laga yaabo inuu shaksiyaad ku haray mooyo inuusan urur ahaan u jirin. marka tribalismku waa khatar weeye. hadday jiraan dad Soomaaliyeed oo inuu caadi yahay runtii yani qabyaaladu waa tribalismkuna waxa weeye waa khatar weeye, waa cunsuriyad nooc cunsuriyada ka mid ah weeye oo weliba xun weeye, wayna ka jirtaa Soomaaliya way maaragtay waxa dalkii burburiyana waa iyada run ahaan. marka arrintaas waxaan contribution ahaan dhihi lahaa marka loo gudbinayo bulshada ama audience loo gudbinayo in aan isku dayno inaan ereygii ay ku fahmi karaan ama ugu dhow oo yani dareenkooda markiiba soo jeedin kara inaanu isticmaalno tribalism weeye. qabyaalada waxay moodayaan qabiil caadi, laakiin qabiil caadiya ma, qabyaalada waa tribalism, waana khatar. arrinta labaad oo runtii iyaduna aad iyo aad muhiimka u ah oo aad ka hadashay waxa weeye waa arrinta ah qaanuunka morality-ga. dadkii hore markii aad ka hadlaysay guddoonkooda inuu toosnaan jiray, garashadooda inay wacnayd, xishood iyo inay lahaan jireen, waxaasoo dhan waxay saldhig u ahaa oo dadkaasoo ay ku dhaqmi jireen oo yani ma garanaysaa hogaamin jiray oo ay wax walba kaga maarmi jireen oo yani ma garanaysaa ay ku adduunka kula macaamili jireen oo safaradii imaan jiray Soomaaliya oo cadaanka ah dadkii wareegi jiray iyo dadkii reer galbeedka ahaa oo Soomaaliya taariikhda yani wax ka qoray qoraalladooda markaa la akhriso ay kulli ku wada ama ma jiro qof Soomaaliya socdaal ku yimid oo wax ceeba ka sheegay. dadka Soomaalida ceeb ka sheegay ma jiro taariikhii hore. waxaasoo dhan waxa soo jiidaya waxay ahayd qaanuunka morality-ga ayaa shaqaynaya, yani waxa weeye valueska waxa la yiraahdo ayaa jiray oo dadkeenu lahaan jireen. haddana dhibtana haysata oo meel walba naga yani na seejisay oo caalamka oo dhan naga takoortay qaanuunka morality-ga oo laga tagay wey, oo camimay Soomaalida, macnaha dhaqankeedii bedelay, afkeedii bedelay, nolosheedii bedelay, taariikhdeedii bedelay, wax walba bedelay. marka arrin sahlan runtii ma aha, waa arrin u baahan in wacyigelin intaa ka badan lagu sameeyo oo weliba barnaamijka ka hadlaya hadda aad ku soo qaadeen TV-ga uu joogto ku noqdo. runtii aan wasaan soo jeedin lahaa inuu joogto noqdo. waa qaanuunka morality-ga, human value-ga aan ka tagnay, horena aan u lahaan jiray, isagaan ku dhaqmi jirnay. marka intaasaan rabay inaan contribution ahaan usoo jeediyo. aad baad umahadsantahay. assalaamu calaykum. aad iyo aad baad umahadsan tahay. waxaad soo jeedisay waa talo wanaagsan. aad iyo aad dadkuna dadweynuhuna waa ku maqlayaan. aad iyo aad baad umahadsan tahay. waxaan u gudbaynaa markaa inaan bal hadda kibirkiina in yar. assalaamu calaykum. telefoon labaad. magacaaga. hallo. assalaamu calaykum. waxaan u gudbaynaa telefonkaasi waa xumaaday. waxaan u gudbaynaa inaynu ka hadalno in yar bal kibirka iyo heerkii uu taagnaa, welina uu taagan yahay, weli waa jiraa oo aad buu usii xoogeystay. laakiin bal hadda qiso yaroo aada inoogu muujinaysaa kibirkaasi. bal hadda mararka qaarkood qofka kibriya laftigiisa sida uu galo ayaynu in yar ka taabanaynaa. nin Soomaali ah ayaa magaalooyinka ka mid oo tuulo ah ayaa waxaa ka taagnaa jirtay bir aada u dheer. birtan aynu inagu nahno birta laydhka ayaa ka taagnaa jirtay. ninku wuxuu ahaa nin qabiilkiisa macnaha aada ugu faana oo isu arkayay inaan isaga iyo qabiilkiisa cid ka mudani aanay jirin. markaa birtiibuu fuulay, waxa uu uga baxay xagga u sarreysa iyo birtii kaga fadhiistay. dabeetna intuu labada lugood birtii ku martay ayuu labadii gacmood ka qaaday. qolo ka hooseysay oo qabiilada uu isagu yaso ama uu arko inuu ka qabiil wanaagsanyay ah ayuu hoos u soo eegay. mid ka mid ah wuxuu ku yidhi car soo ful. dabeedkii nin caqli badan buu noqday. wuxuu ku yidhi car adigu haddaad reer hebel tahay labada lugood ka qaad. labada gacmood markii horeba uu ka qaado kuma haynin.
wuxuu yidhi car haddaad reer hebel tahay labada lugood ka qaad kee reer hebelnimadu iyo qabka iyo kibirku bal haddaa qof ninka halku la joogo wax la qiyaasi kara maaha mar allaale markuu maqlay car adoo haddaad reer hebel tahay ka qaad ayuu labadii lugood birtii ka qaaday dhulkuu ka soo gaayo boodoodu ka jabay bal reer hebelnimadii haddaba ha kabto kiintu saa eega iskaga dhaqaaguri haye haddaad reer hebel tahay maxaad halkii u saaraan weyday buuri reer hebelnimadii maxay kuu celin weyday wuu iskaga tegey marka maxay kuu muujinaysaa macnaag halow assalaamu calaykum waraxmatullah calaykum salam waraxmatullah wabarakatu calaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso fadlan may waa la qoray abdiraxmaan colaad norway waa yahay taladaada iyo waxaad barnaamijka kusoo kordhinaysa saaxiib adigoo mahadsan maya su-aal baan doonaya inaan weydiiyo kayse waa yahay waa ka waa yahay waa ku maqlayaa ya waa ku maqlayaa soo daa ma kayse ay maqlaya waa ku maqlayaa ha calaykum assalam waraxmatullah wabarakatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu kayse waxaan kasoo hadlayaa waa cabdiraxmaan colaad maxamed waxaan kasoo hadlayaa norway waa yahay walaal waxaan ahay guddoomiyaha beelaha gabooye ee norway waa yahay barasho wanaagsan waxaanan hadda ka maqleeyey in aad 1991 burco ciidamo qabyaalad u kala baxay aad macnaha waan wanaagsan aad dhex dhigtay waa yahay waa hawl wanaagsan oo aan kuugu tahniyadeynayno laakiin ma isku dayday in aad sidaasoo kale ugu qaadato ood kharashna ama dawladda hoose ama dawladda dhexe ee somaliland aada u weydiisato ee aad kala dhex gasho beelaha gabooye iyo beelaha ay la degaan ee somaliland bal in ay cunsuriyadda iyo qabyaaladda iyo ficilada foosha xun ay kula dhaqaaqayaan bal in aad hawl ka qabato ma isku dayda mase ku tala jirtaa waad mahadsan tahay su-aasheedu waa intaas waad mahadsan tahay hawshan aynu wadno ee kala sooca qabiilka iyo qabyaaladda ama la dirirka qabyaaladda aynu hadda wadno ayaaba taas ka mid ah waayo cid kasta oo ay naga mid yihi ama gabooye ha noqoto ama yay noqonin waxay u baahan tahay in ay ka xorowdo oo ay ka madax bannaanaato waxa loo yaqaano qabyaaladda ee aynu nidhi waxay ku dhisan tahay hiil xaqdarro ah iyo kibir marka maalinta aynu taa suulinno ma jirayso cid yasaysa ma jirayso cid quursan doontaa haddii alla idmo haddaynu ku guulaysanno oo aynu gacmaha isku qabsanno dhammaanteenba oo aynu ficil u bedelo hadal maaha inaynu ficil u bedelo haddii ay noqoto oo barnaamijkeennana wuu sii soconaya insha allah ama t v ha ka baxo ama shirar meel kasta lagu qabto ha noqotabe wuu soconaya oo arrintan inta la nool yahay idinkiiyo annaga iyo cid kastoo danaynaysaaba waxay noqon doontaa hawl socon doonta markaa walaal cid kasta oo inaga mid ah qabiilkay doonta ha sheegato waxaynu hore u nidhi qabiilku waa wax jira waa wax aan la baabi'in karin waa wax astaana oo ay tahay sida uu yahay in loogu koobnaado qabyaaladuna waa taa aynu hore barnaamijkeenni hore haddaad dhegaysatay si wacan baanu sida laysu quursado uga hadalnay oo weliba maansooyin yaanu ku qeexnay marka insha allah waxa aynu ku dadaalanaa barnaamijkeennana ka mid yahayba inaynu hawshaa aad inagoon cidnaba u kala soocin weliba xaggaa aad sheegaysana xoogga sii saarayna oo weliba barnaamijyo gaara oo haddii alla idmo si gaara looga hadlo oo magaranaysaa shirar loogu qabta ay noqonayso oo laysugu tago cilmi iyo magaranaysa wax kaleba mana xooggeenu saari doona insha allah aad baad u mahadsan tahay teleefonka ku xiga ayaan iminkana kusoo dhaweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu halkaad ka soo hadlaysaa magacaaga saaxiib waa maxamed sheekh axmed wey soomaaliya waa yahay kusoo dhawow barnaamijka
taladaada iyo tusaale waxaad haysana soo gudbi. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا سلام الله هذا الله اسكاله ثم waxaan idinka mahadcelinayaa barnaamijkan marka ugu horreysay telefishinka uma waxaan uga mahadcelinayaa kiise oo hormuudka aruntii si wanaagsanna maaragtay barnaamijka u wada wax waaqaca maanta jirana ka hadlaya. marka fikriyan waxaan rabaa inaan kelimadkan ka idhaahdo kalana aan raaciyo arrinta qabiilka iyo qabyaaladda dadku ay leeyihiin qabiilkaba hana laga daayo sidiisaba iyo qabyaaladu way isla socdaan. arrintaasi waa arrin sharcan iyo caqlanba khalad ah wey. ilaahi subxaana wataala kitaabku ku keenay oo noogu sheegay jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. waxaa la rabaa in la fahmo kacaankii soomaaliya ayaa dadka wuxuu isaga daray intaan anigu hadda garanayo waxyaabo dhowr ah. wuxuu isku daray sinaanta iyo cadaaladda oo si khalada ayuu isugu daray. wuxuu sidoo kale si khalada isugu daray qabiilka iyo qabyaaladda si khaladu ayadana isugu daray. ummadda markaad aragto anagu muslimiin baan nahay shay kasta oon isku qabanno ama nala khaldanaada ama nala saxnaada waxaan u celinaynaa marjica kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed calayhi salaam. kitaabkii waana loogu sheegay litacaarafuu liajli tacaarafuu laamcillo way yidhahdaan culimadu qolada naxwada inaad isku garataan oo lagu kala habaabin oo wiilku hooyadii iyo qaraabadiisi iyo aabihii iyo inadeerkiisi iyo ilmihiisi iyo wasiilo la isku xiriiriya ay noqoto aqrabada ah baa ilaahay ugu talagalay. midka yimaadana lagu xambaaro oo aan la garan waayin dadkan sida loodii iyo arigii iyo geeli. litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum. ilaahay agtiisana qofka idinku karaama badan ka laandheeraha ma aha, ka lacagta badan ma aha, ka quruxda badan ma aha, ka hadli og ma aha. waa midka cibaadada ilaahay kitaabka iyo sunnada midka ku toosan wey. ama dareer ha aado ama jaleec ha aado ama yurub ha aado. meesha marka la isaga daray oo soomaalidu isaga dartay oo kacaankii uu arrintaa bilaabay. kacaankii wuxuu yidhi sinaan iyo cadaalad baa la samaynayaa. markaasu wuxuu yidhi rag iyo dumarkaasiba rag iyo dumarkiibaa sinaan iyo cadaaladda meesha laga samayn lahaa. haddaad tiraahdo marka barnaamijkii sinaantii iyo cadaaladii saan ma ahana haddee dad wixii ka raaci waa la ogaa. meeshaa waa lagu khaldamay. sinaantii iyo cadaaladii waxaa weeye shayga loo soo wada dacwoodo iyo shayga ilaahay dadka u simay. gabadh iyo ninku ma sinno. aniga ninka xoolaha liya midkaan lahayn ma sinno. xuquuq aan loo simayn mid loo keenaya waa maxkamadda ilaahay ama maxkamadda markaa bini aadamku samaystay wey waxa sinaantii iyo cadaaladda laga rabo. kitaabkan ilaahay dadka wuu kala fadilay midna waxbuu siiyey rag iyo dumar buu ka dhigay waa sidaasaa dadka ugu kala dhigay. waxaa kusoo haray qabiilkii iyo qabyaaladii wuu isku daray oo wuxuu yidhi qabiilba la weydiiyo oo laga maqlo waxa weeye waa inkaar qabo weyo beerkaa laga xasirinaya qabiilkii baa la duwaya. oo qabiilka ilaahay baa banaanka keena. waad aragtay saxaabadii marka laga sheekeynayay taabiciyiintii alqurashi soo koob adoo iga raalli alfulani waa barnaamij qofka qabiilkiisa loogu yeerayo. marka waxaan leeyahay war qabyaalada ninkan waa la yaqaanaa. waa nin isaaqa oo habaryoonisa waa la garanayaa oo muuse cara ka sii halkaasaa la fariisinaya. waa nin mareexaan oo reer diini ah oo hadda reer kooshinaa la oranaya. xagga kale loo dhaqaajinaya waa nin abjaala laleeyahay haddii alla ku reeyahay muxuu ahaa hanti abjaal wartangeliyaa laleeyahay xagga la fariisinaya. waa nin dhowrbahanto oo haddana waa faarax garaad baa la siilaya. waxdigadeertana waa maxamed salmaan cumar maxamed buheye. aad baad u mahadsantahe adoo iga raalli soo gaabi waa soo ururinaya. barnaamijku meesha uu ka khaldan yahay waxaa weeye war cadaaladii baan ka tagnay oo annagaa qabiilkii qurun ku raadinayna iyo qabyaalad iyo waxdiniyo ummadda in lagu dhiciyo in lagu boodiyo in lagu dile laga tago ilaahay siduu u yiri ha loo raaco oo wanaagga ha laga raacay xumaanta yaan laga raacin. qabyaaladuna waa qurun. qabiilkana ilaahay baa ammaanay wanaag buu ku ammaanan yahay. kitaabkaana lagu keenay sunnadaana lagu keenay. si welwelkana ha laga daayo waxa jacburkoo lagu dhaxwadana ha laga daayo. sidaasayna arrintu ku toosan tahay aniga aragtidayda intaan garanayo diin iyo caqliba. wasalaamu calaykum. aad iyo aad baad u mahadsan tahay
daawadayaal waxaynu soo gaadhnay gabagabadii barnaamijkeenna farsamada waxaa inoo joogay xarago waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed kayse inta aynu mar kale idmo barnaamijkan waqtigiisa ku kulmi doono waa anigoo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu